marka runtii 62 sano oo gobonnimo oo haddana aan waxba gobonnimo lagu sheegi karin oo dadku still gobonnimo badan ay jirto dadku ay gaajoonayaan dadku aanay cunto cunaan aanay haysan tusaale ahaan waxyaabo muhiim oo in la isweydiiyo baahan oo la yiraahdo gobonnimadan aanu dabaaldegana runtii maxay gobonnimo tahay haddii maanta abaar dadkeenu dhimanayaan 62 sano kadib tusaale ahaan gobonnimadii kadib. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kulanti wanaagsan akhyaarta hawada naga daawanaysay daawadeer ku soo dhawaada gorfayn aanu ku samayn doono buugga dhaqaalihii jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee 1960kii ilaa 1990kii oo uu qoray qoraa Maxamed oo ku magac dheer ama loo yaqaano Khadar oo ah qoraa iyo cilmi baare muddo dheer soo ku soo dhex jiray dhinaca qoraalada iyo cilmi baarista waa aqoon-yahan bartay culunta cilmiga dhaqaalaha iyo waliba siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah oo uu ku soo qaatay dalka Bangladesh iyo waliba Turkiga isagoo shahadiisa koowaadna ka qaatay jaamacadda Hargeysa. sidoo kale Khadar waa bare ka tirsan jaamacadaha dalka oo ka dhigo culunta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo waliba dhaqaalaha laftiisa. waxa uu Khadar yahay qoraa horena u qoray buug lagu magacaabo Kalamaan oo kaga hadlay wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya. sidoo kale waxa uu Khadar qoray qoraalo kale oo dhinaca cilmiga ah oo uu daabacay oo arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda uu kaga hadlay. Khadar waxa uu dhawaan soo saaray buuggan hor yaalla oo kaga hadlay dhaqaalihii jamhuuriyaddii Soomaaliya xilliyadii u dhaxaysay 1960kii ilaa iyo 1991kii markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya ee uu hogaaminayay General Maxamed Siyaad Barre. inta ay gorfeyntan socoto waxaanu Khadar ku weydiin doonaa waxyaabaha uu xambaarsan yahay buuggu iyo ujeedada ama waxyaabaha ku dhaliyay inuu sameeyo iyo waliba waxyaabaha laga faa'iideeyay dadka buuggan akhrista ama dadka dhaqaalaha bartay ay ka heli doonaan. Khadar ku soo dhaw barnaamijka. aad baan maasanta Salaaman nama soo dhawaandawa ugu horeyn Khadar haddii aad si guud aad nooga warantid ama aad warbixin guud naga siisid buuggan waxyaabaha ku kalifay inaad qortid waa buug marka la akhriyo waxyaabo badan macluumaad badan gudihiisa ay ku jiraan maxaa ku kalifay inaad buuggan aad daawacdid? way Salaaman waad maadsan tahay adiga iyo MMTV ba aad baan idinku mahadnaqayaa. buuggan horta markii horeysay mawduucan dhaqaalaha muddo badan maan dhaqaalaha ku dhex soo dhex jiray maraan arday ahay maraan baadhiyay maraan dhiganayba mawduucan inaan dhaqaalihii jamhuuriyaddii Soomaaliyeed ku noqdo intii aanay burburin 60kii ilaa 1990kii waxa markii horeysay igu kalifay maxaan dhahday xiisaha geliyay buug aan akhriyay sanadkii 2016kii oo qoray aqoon-yahan Soomaaliyeed oo la yiraahdo Jamiil Cabdalla Mubaarak. buuggaas oo ka dhashay isaga laftiisu cilmi baaristii uu PhD-da ku sameeyay ama ku qaatay jaamacadda Johns Hopkins University ee dalka Mareykanka. buuggaas oo la yiraahdo From Bad Policy to Chaos How an Economy Fell Apart waxa uu ka sheekeynayaa sidii maxaan dhahday nidaam siyaasadihii hanti wadaag ee uu dalku qaatay saameynta dhaqaalaha uu ku yeesheen iyo waliba doodiisa sidii uu markii dambe burburka waddanka qayb uga qaateen. markaasuu xiisaha mawduuca igu bilaabmay mawduuca waxaan baadhayay ilaa xilliga oo aan daraasada ka sameynayay runtii 2020kii iyo 2021kii ayaan qoray 3 daraasadood mawduuca ka qoray oo aan maxaan dhahday maqaal aqooneed ahaan ama cilmiyeed ahaan aan u daabacay. marka maqaaladaasi imika chapter ahaan bay buugga ugu jiraan. marka horta kaasaa kamid ah wixii ugu horreeyay xiisaha geliyay laakiin arrinta ugu muhiimsan aan isla buuggan way ku gelisay waliba inaan af Soomaali ku qoro waxa ugu muhiimsan runtii dhaqaalaha dhalinyarteena markay dhaqaalaha baranayso ardaydu waliba jaamacadaha ku baranayso mushkiladda ugu weyn ee jirta waxa weeyaan dhaqaala waaqaca ay ku nool yihiin ka turjuma ma bartaan. ma jiraan buugaag way jiraan buugaag af Ingiriis ku qoran laakiin buugaag af Soomaali ku qoran oo ardayga imika dhaqaalaha barashadiisa bilaabay uu ku fahmi karo waaqaca dhaqaale ee nolosha iyo la xiriira noloshiisa ee Soomaalida wixii hore imikaba runtii ma jiraan. taasina waxay keentay in barashada ardaydu ay baranayaan textbooks ama buugaag laga soo weeraray wadamo shisheeye oo ka sheekeynaya dhaqaale shisheeye oo Mareykanka u badan yahay inay dhaxal siiso in ay u arkaan dhaqaaluhu inaanu ahayn wax noloshooda toos la xiriira oo tusaale ahaan macno badan uu sameyn waayo. marka taas ay igu kaliftay inaan bal buuggani uu u noqdo tixraac oo ay fahmaan dhaqaaluhu marka waaqicooga la xiriiro maxaan dhahday noloshooda la xiriiro dhaqaalihii Soomaalida yahay sida uu runtii maxaan dhahday uu dhadhan ugu sameyn karo. qodobka ugu dambeeyana isla ayaan ku soo koobi karo inuu waxyaabaha igu dhiirigeliyay waxa kamid ah runtii afka Soomaaliga waxa laga yaabaa in 20 sano 15 sano ay jirtay dood ah odhanaysa in af Soomaaligu uu ku jiro afafka ama luqadaha si dhimanaya sababtuna ay tahay inaan wax badan lagu qorin ama aan daraasad lagu sameyn ama aan la horumarin. marka si taa loo beeniyo
baryahan dambe waxaa socdo dadaalo dhalinyaro wado aan ka mid ahay oo la doonayo in bugaag noocyo kala duwana oo cilmi iyo wax walba isugu jira in afka hooyo lagu qoro laguna soo turjumo marka taasina waxay dhiirigelinaysaa in afkii ay kobciso oo waxaan isleeyahay buug sidan oo kale dhaqaalaha uga hadlaya af Soomaali ku qoran muu jirin hadda ka hor marka taas waxay keenaysaa in afkii maxaan dhahdaa la nooleeyo oo ereyada cilmiga ah ee dhaqaalaha lagu isticmaali jiray la helo marka in bugaag badan oo imka ay socdaan oo dadaalo sidaasina runtii waa arrin aad loogu farxo dhalinyar badan ay wado dadaalo turjumaad iyo qoraal labadaba oo afkii la kobcinayo okay marka khadaro muxuu ka kooban yahay buugga cutubiyada ka kooban yahay dad noo yara shaxid maxaa ugu waaweyn ee ku jira gudihiisa niyow horta in dhaqaale dal dhan laga hadlaa waxa laga yaabaa qofku markuu lagu yidhaahdo buugani dhaqaale dal dhan buu ka hadlayaa wuxuu isweydiin karaa tolo dhinacu ka eegaya ama dhinacu ka istaagaya marka waxaan isku dayay inaan dhinacyada ugu fiican ee sawirka ugu fiican ka bixin kara dhaqaalihii dalka soddonkaa sano aan maxaan dhahdaay aan ka istaago marka buuggu 6 cutub oo weyn buu ka kooban yahay waxaa ka mid ah tusaale ahaan cutubyada hore oo dhaqaalaha gudaha wax soo saarkii gudaha iyo warshadihii iyo beerihii iyo waxyaabahaas maxaan dhahdaay ku saabsan cutub kale waxaa jira xiriirka dhaqaale dalku dunida inteeda kale oo la lahayo ganacsiga iyo kale tusaale ahaan dhoofintii soo dejintii waxaa jira cutubyada ka hadlaya deyntii iyo gargaarkii wadanku qaadan jiray ama uu heli jiray cutubyadan isleeyahay cutub dhexaad buu ugu yimid waxaa kamid ah cutub ka hadlaya hanti wadaaga cilmiga ku dhisan oo runtii si qoto dheer u falanqeynaya maxaan dhahdaay hanti wadaaga mararka qaarkoodna barbar dhigayaba maxaan dhahdaay wadamadii kale Afrika hanti wadaaga iyaguna qaatay sidoo noqday iyo ugu dambeyn maxaan dhahdaay nidaamka maaliyadeed ee dalka lacagtii iyo siyaasadii lacagta iyo sicir maxaan dhahdaay isku bedelka lacagaha iyo waxyaabo la xiriira ayaa iyaguna kamid ah marka cutubyo sidaas oo aan isleeyahay dhinac walba dhaqaalaha sawir way ka bixin karaan ayuu ka istaagaya okay ku soo noqon doona cutub baan dul istaagi doona wixii ay su'aal ka weydiin karo marka hadeen ku soo noqono waxaad tiri inta badan ardaydo kale waxaad ugu tala gashay deena ka faa'iideystaan inta badanna waa buugtii u horeysay dhinaca dhaqaalaha ka hadlaya Soomaali lagu qoro marka waxyaabaha aad isleedahay ardayda Soomaalidu meel kasta ay joogto dhaqaalaha baranaysa si gaar ah uga faa'iideysaa oo ka helaysaa maxaa isleedahay waa ka mid yihiin horta aniga laftaydu sidii aad hordhac ku sheegtay digriigii koobaad ee dhaqaalaha waxaan ku qaatay wadanka marka waxaan garan karaa dhaqaalihii aan dhigan jiray iyo waaqacaan ku noolaa sidii aanay shaqaysigu lahayn ay u kala fogaayeen deedna qofka jaamacadda wadanka ku dhigtay dhaqaale dhigtaa dhaqaalaha wuxuu arkayaa waxay gaar u leeyihiin dalalka horumaray ee Mareykanku ka mid yahay tusaale ahaan oo aan nolosheena inaga toos ula xiriirin tusaale ahaan marka waxa ugu muhiimsanaya horta uu qofku baranayo waxa ka mid ah kow inuu dhaqaale noloshiisa iyo waaqiiciisa ka hadlayo isaga toos ula xiriira inuu maxaan dhahday arko ama uu akhriyo waa qodobka labaad ereyo laga yaabo inay isla dhiban yihiin oo maxaan dhahday aqoon wax kasto aqoonta la dhigtaa waxay leedahay maxaan dhahday ereyo cilmiya oo u gaar ah oo maxaan dhahday fiilkaasi gaar lagu adeegsado marka in ereyada laftoodii ay ka faa'iideystaan marka ay af Soomaali ay lagu qoriyo af Soomaali sida ku noqon karaan iyo adeegsigooga ayaa isaguna kamid ah waxyaabaha caawinaya ee ay maxaan dhahday ka fahmi karaan iyo afkoogii iyo cilmigii afkii cilmiga dhaqaalaha ku qornaan laftiisa inay isku xidhaan ayaa iyaduna kamid ah sidoo kale waxa kamid ah tusaale ahaan ardayda dhaqaalaha Soomaaliland barato oo kale ama Soomaaliland ka barata waxa jira tusaale ahaan koorso si gaar ah loogu baro dhaqaalaha Soomaaliland ardaydu waa inay ogaato inaanay taariikhda Soomaaliland 19 ka bilaabmin waa inay ogaadaan si ay u fahmaan dhaqaalaha maanta jira iyo qaabku u eegyahay wixii ka horeeyay marka wixii ka horeeyay waxay noqonaysaa in 30 sano ee jamhuuriyaddu jirtana la eego xilligii gumaysigana la eego marka xilliga gumaysiguna daraasado gaar ah buugaag gaar ah u baahan tahay oo iyaduna la daraaseeyo dhaqaalaha maanta buugaag gaar oo laga qoro ayuu u baahan yahay laakiin si kooban waxaan isleeyahay tixraac aad muhiim u ah oo anfacaya af ahaan dhaqaale ahaan waaqac ahaan ayuu u noqonayaa ardayda dhaqaalaha barata iyo maxaan dhahday dadka kale dhaqaalaha xiiseeya labadaba okay inta badan marka buug la qoriyo noocan oo kale ah ee waliba aad soo xigeynaysid ama aad tixraacyo ku sameysay buug hore aad akhriday ama cilmi baaris aad akhriday ama qaar adigu aad sameysay inta badan Soomaaliga iyo marka lagu qorayo aad ku adkaan kartaa markaas caqabadaha ugu weyn ee aad la kulantay intii aad waday arinta buugan maxaa kamid ah wallahi niyo horta caqabadaha waxa kamid ah aan ku bilaabay taa afka aad sheegtay afku niyo aad buu mushkilad u yahay af Soomaaligu waa af qani ku ah markuu joogo dhaqankiisa baadiye markuu joogo geel iyo ari la dhex joogo waa maxaan dhahday af qaniya laakiin markuu afku yimaado meel aanu hore looga aqoon ama aanu magaranaysa meeshiisii ahayn oo ay kamid tahay in magaalo yimaado inuu cilmi iyo af maxaan dhahday yimaado waa arrin aad u adag saan sheegana buugani waa buug academic oo qaab cilmiya u qoran oo daraasad cilmiya ku salaysan in la helo ama buug loo qoro qaab cilmiya runtii ma aha wax sahlan
marka afku caqabada ugu weyn buu ahaa baan is odhan karaa midda kale af soomaaliga aad loogama shaqeyno ilaa 27kii markii farta la qoray lagama shaqeyno aad looma horumarino afka waax kasta oo cilmiga ah lagama shaqeyn maxaan dhahdaa in ereyadeedii cilmiga ahaa iyo luqadeedii u gaar ahayd la diyaariyo marka waxyaabaha waad arki doontaan waxyaabaha caqabada igu noqday waxaa ka mid ah ereyada u gaarka ah dhaqaalaha la adeegsado sideen u afcin lahaa ama aan u turjumi lahaa waxaa jiray ereyo hore oo aan helay laakiin aan waaqaca aan ereyga macno badan sameynayn qofka dhaqaalayahanka aanu sameynayn marka inaan dib u yara bedelo ayay noqotay marka taasaa ugu muhiimsan caqabadaha kale waxaa ka mid ah xogta runtii oo dee waddankuu burburay wixii xog taallay way baaba'day maxaan dhahdaa resourcekii marka saad aragto buug wuxuu ku salaysan yahay daraasado hore oo la daabacay oo markaa dee sidaa loo helay in la daabacay loo helay iyo warbixino bankiga adduunka iyo hay'ado kale ay daabaceen tusaale ahaan ayuu ku salaysan yahay marka in la helo maxaan dhahdaa xogihii qaranku lahaa ee wasaaradihii dowladdu lahaayeen dawad ogtaa wixii dagaalka iyo burbur waddanka ka dhacay iyo bilaqaysi oo hantidu dhamay baabaday marka in la helana iyaduna waxay ahayd baan isleeyahay caqabad kale labadaasaan ku xusi lahaa caqabadaha marka halkaan marayno buugga soo daadegno cutubiyada ugu horeeya ama waxyaaba ugu horey ka soo qaatay waxaa ka mid ah ka hadashay wax soo saarkii jamhuuriyadda maxay ahayd Soomaalidu ay lahayd ma garanaysaa 1960kii ilaa 1961kii marka haddii aad in yar noo sharaxid waxyaabaha ama ilaha dhaqaalaha ee ku tiirsanaa dhaqaalihii Soomaaliya maxaa ugu waaweynaa horta bulshada Soomaaliyeed weligeedba waxay u badnayd xoolo dhaqato inkasta oo dad beeraley ah jireen dad kalluumaysato jireen dad reer magaalo ah jireen oo magaalooyinka degan haddana bulshadu waxay u badnayd xoolo dhaqato marka isha dhaqaale ee ugu muhiimsan uguna weyn ee uu waddanku soo saaro isla markaana uu dhoofiyo waxay ahayn xoolaha nool oo dee geel iyo ari iyo lo sidaynu maxaan dhahday aynu u naqaano ah waxaa soo raacayay markaa beeruhu dhowr nooc bay ahaayeen beeraha kow waxaa ka mid ah beero tusaalehaan koonfurta oo kale dhulka webiyadu maraan ayaa muuska laga beeri jiray muusku waxaa jiray maalgelin uu talyaanigu sameeyey xilligii uu dalka haystay oo aad u ballaaran maalgelintaasi waxay keentay markaa in ay jiraan beero waaweyn oo qaab ganacsi loo sameeyey oo muusa oo waraab casriya leh tusaale ahaan marka muusku wuxuu ahaa badeecada labaad ee uu waddanku dhoofiyo markay noqoto waxyaabaha waddanku dhoofiyo dakhliga lacagta adeega ka soo gasho waxaa sidoo kale jiray beero waaweyn oo sida loo maalgeliyo ay sonkortu ka mid ahayd oo dee warshado sonkoreed baaba maxaan dhahdaa waddanka ka jiray waxaa kaloo jiray iyaguna markaa dee beer roobaadii iyo beerihii yaraa waraabka kooban haystay tusaale ahaan ayaa iyaguna ka mid ah waxyaabaha yare xagga beeraha marka laga hadlo kalluumaysigaa jiray maadaama aynu nidhi dadku dad xoolo dhaqataa u badan yihiin runtii kalluumaysigu wuxuu ku jiray meelaha Soomaaliyana ay leedahay badda ugu dheer maxaan dhahdaa ama jamhuuriyaddu xilligaa ay lahayd badda ugu dheer ee qaaradda Afrika xeebta ugu dheer haddana waxaan jirin mar walba oo meesha ka maqanayd ka faa'iideysiga kalluunka khayraadka kalluunka waayo dadka ahaa dad xoolo dhaqato badan oo aan kalluunkan iyo carbisnayn ka faa'iideysigiisa marka nasiib darro kalluunku mar walba wuxuu ku jiray waxyaabaha ugu yara waddanku dhoofiyo wuxuu ku jiray waxyaabaha ugu yara dakhliga waddanka uu ka soo galo xagga dhoofinta tusaale ahaan kuwaasaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah oo iyagana la eegi karaa warshadaha oo saynu sheegnay dalku warshado badan buu yeeshay xilligii maxaan dhahdaa hanti wadaag la qaatay maxaan dhahdaa taliska askarta waddanka haystay marka warshaduhuna waa ka mid maxaan dhahdaa waxyaabaha buugga isdul taagayo marka meelahaasaa ka mid ah ilaha dhaqaale ama wax soo saarka gudaha marka gudahaynu ka hadla marka intaan la gaadhin wixii dibadda ka soo gelaya waxyaabahaas markaynu ka hadlayno 1960kii ilaa 1969kii oo intii ah dawladihii rayidka ahaa ay ka jireen Soomaaliya isla markaana laga soo guuray oo laga soo gudbay waqtigii gumaystaha inta badan waxaa la tilmaamaa in dhaqaalaha Soomaaliya dee dawladii gumaystayaashu ay taageeri jireen oo dhaqaale ay ku kabi jireen marka la eego maxay ahayd dhinaca taageerada dhaqaalaha ay siin jireen wadamadii gumaystayaashu dawladii rayidka ahaa intaan la gaarin askartu xilka la wareegin ama xukunka qabsan muxuu ahaa dhaqaalaha ay siin jireen niyow horta waddanku 30kii sanaba gargaarka shisheeye aad buu u tirsanaa oo dhaqaalu marna cagihiisa iskuma taagin oo kama maarmin maxaan dhahdaa gargaar shisheeye hase ahaatee saad sheegtay dee dhaqaaluhu kala fiicnaayo maxaan dhahdaa intii hore dhaqaaluhu aad buu gaabis u ahaa marka bilowgii oo kale tusaale ahaan dalku marka xorriyadda qaatay ee labadii dhinac isku beereen Somaliland iyo Soomaaliya waxa dhacday oo jirtay in uu aad maxaan dhahdaa ay dawladdu aad u taaldarnayd marka xataa waxa jirtay in budget support in miisaaniyadda qaranka ay 3 sano hore ay taageero laxaad la siin jireen dawladihii waddanka gumaysan jiray oo Ingiriiska iyo Talyaaniga
hase ahaatee markii dambe lixdanadii dalku wuxuu helay taageero maxaan dhahday ama gargaar shisheeye oo badan khaasatan wadamada galbeedka sidoo kale wadamada carabta iyo wadamada maxaan dhahday midowga sovieti wadamada bariga marka gargaarkaas bilowgii waxa lagu sameeyey maxaan dhahday mashaariicdan waaweyn oo ummadda ka dhaxaysa isbitaallo dugsiyo wax lagu barto maxaan dhahday waxyaabo lamid ah ayaa lagu sameeyey wadooyin tusaale ahaan sidoo kale warshado yaryar baa lixdanadii gargaarada la helay lagu bilaabay lagu sameeyey laakiin warshado aad u kooban oo yaryar ayay maxaan dhahday ay ahaayeen marka gargaarka la helayay badankiisu waxna wax dowladdu toos u taageeray buu ahaa waxna wax lagu caawinayay wax soo saarka wadanka iyo sidoo kale adeegyada ay dowladdu bixiso ee bulshada siiso dadka ku celiso maadaama ay dowladdu xilligaa daciif aad u ahayd ayaa jiray marka waxyaabahaas ka mid ahaa maxaan dhahday waxyaabaha dhacay laakiin lixdanada aakhirkoodii runtii wadanka waxa aad u ragaadiyey maxaan dhahday musuq maasuq iyo maxaan dhahday hanti boob oo dowladihii u dambeeyey lixdanadii intaan askarta wadanka qabsan aad ugu sifoobeen taasina curyaamin weyn bay wadanka runtii ay ku keentay u geysatay laakiin si kooban waxaasa ka mid ahaa aynu ka sheegi karnaa gargaaradii uu wadanku heli jiray lixdanadii marka bartaa marayno inta badan waa kuwii labada gobol isku darsamay ee dowlad midnimada la sameeyey inta badan dhaqaalaha jamhuuriyaddii midowday ee Soomaaliya ama Soomaaliyeed inta badan waxa la sheegaa in gobolada waqooyi ay ahaayeen meelo aad xagga dhaqaalaha loogu tiirsanaa ama xagga loo eego maxaa saamaxay ama dhaqaalaha dhinaca gobolada waqooyi maxaa muhiimada gaarka ugu hayd horta niyo buugu si aad isku mudul taagin inuu isbarbar dhigo labadii gobol waqooyi iyo koonfur tusaale ahaan ama Soomaaliland iyo Soomaaliya si guud buu inta badan buugu maxaan dhahday u eegaya ama isku dul taagaya laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah dekada berbero kale dhaqaalaha dalka waxay u ahayd meel aad u muhiim ah waayo wadanku saynu sheegnay waxa ugu badan u dhoofiya xoolaha ahaayeen xoolaha ugu badanna mar walba waxa lagu dhoofin jiray dekada berbera ama de xoolo dhaqatadii ha u dhawaato oo xoolo badanna halkan iyo ilaa gobolada dhexe ku noolaadaan amaba berbera ha u dhawaato wadamadii loo dhoofinayay khaliijka oo ha noqoto Yemen iyo Sacuudiga iyo wadamada maxaan dhahday lamidka ha noqotee laakiin iyo si kooban waxaynu xusi karnaa in dekada berbera ay kamid ahayd meelaha ugu muhiimsan laakiin marka xagga laga yimaado dhaqaalaha koonfurta xoog badnaa labada dhinac oo halkan maalgelin badan laguma sameyn warshada lagama sameyn warshada badanka koonfur baa laga sameeyey allahumma salli ala Muhammad taasaa keenaysa marka in mar walba dhaqaaluhu midda kale wadanku wuxuu iska ahaa wadan dee caasimadda ka nool oo caasimadda ka socda oo wax walba caasimadda ay yaalaan ayuu iska ahaa marka laga yimaado warshado kooban oo xaggan laga sameeyey iyo dee xoolihii noolaa ayaa ugu muhiimsanaa runtii marka laga yimaado dhaqaalaha koonfurta yar labada xoogana marka maxaan dhahday dheeligaas iyo maxaan dhahday labada dhinacna uu jiray inaanu dhaqaaluhu aanu islaakeyn ama aanu isnayn okay khadar marka laga yimaado arintaasi aynu usoo daadegno kusoo noqono 3 tobnaad baad u qaybisay ma garanaysaay 1960 ilaa 1990 tobanka hore ee inta badan kacaan qoladii dawladii rayidka ay jireen waxa 1960 talada la wareegay askartii taliskii Maxamed Siyaad Barre xunka la wareegay marka kadib dadka inta badan waxa la sheegay marka askartu la wareegeen in dhaqaalaha Soomaaliya kor u kacay in isbedel waaweyn yimaadeen in wadanku ku tiirsanaantii magaranaysa dibadaha laga raystay in magal isku filaansho dhinaca cuntada la gaari bal isbedelkii dhaqaale ee yimi markii taliskii Siyaad Barre xukunka qabtay muxuu ahaa haddaan soo ururiyo horta Maxamed Siyaad Barre askartu markay dalka qabsadeen 69kii 22 Oktoobar waxa dhacay sanadkii koobaad nidaam iyo wax iskala qabsi iyo in iyaga laftooda cagaha isku taagaan nidaam iyo dhisaan iyo hay'ado dhisaan sanad guuradii koobaad ee kacaanka 70kii ayuu dalku ku dhawaaqay horta inuu qaatay waxa la yiraahdo hanti wadaaga cilmiga ku dhisan scientific socialism hanti wadaagaas wuxuu keenay runtii in hantidii wadanku lahaa oo dhan ay dawladdu la wareegto ilaahay wax soo saarka ay ugu waaweynaa inay dawladdu la wareegto marka laga reebo xoolaha nool oo ay adag tahay sida dawladdu ay la wareegto iyo muuska labada marka laga reebo oo buugu xusay labadaba sababaha ay dawladdu la wareegi kari weyday dalku wuxuu noqday dal ay dhaqaalihiisa dawladdu hogaamiso ay dawladdu gacanta ku hayso midowga Soviyetina bilowgii wadanku wuxuu ka helay taageero dhaqaale aad u muhiim ah ayuu ka helay inkastoo wadamo kalena ay ka yimaanaysay oo Soomaaliya Carabta oo kale oo de jamhuuriyaddu waxay si toos ugu beertay jaamacadda Carabta 1970kii marka wadamada Carabtana maalgelin badan iyo taageero badan ay ka heli jirtay oo deyn iyo deeq bay isugu jira dhaqaalaha wadanku waxyaabaha ugu muhiimsan waxa kamid ah 5 sano ee u horeeyay 70kii ilaa 75kii 5 sano ee u horeeyay nidaamka kacaanku nidaamka hanti wadaagu wuxuu gaaray runtii wuxuu ku dhaqaaqay xawli aad u sareeya wax badan buu qabtay
oo maxaan dhahday ha noqoto in adeegyadii bulshada oo dugsiyadii maxaan dhahday xarumaha caafimaadka adeegyadii bulshada aad ba horta loo ballaadhiyo dalka dhan baa la gaadhsiiyey laba oo dee watan af soomaaliga afar soomaalida la qoray 72kii iyadana aad baa dalka loogu baahiyey waxaa kaloo jirtay in warshado nidaam warshada ah uu sameeyey maxaan dhahday wadanku yooda isagoo ku sameeyey taageero dibadda ka imanaysa gargaar iyo maxaan dhahday deyn labadaba ku imanaysa warshadaha la sameeyey nidaamkii wax soo saarkii nidaam wadanku dhan dib loo qaabeeyey waxa la sameeyey wakaalado iyo hay-ado u qaabilsan wadanka tusaale ahaan wax soo saarka maamulkiisa u qaabilsan maxaan dhahday dhoofinta soo dejinta waxaasoo dhan nidaamkii oo dhan baa la qorsheeyey oo laga dhigay nidaam dhaqaale oo qorshaysan oo ay dowladdu gacanta ku hayso dowladdu hogaamiso taasi waxay keentay in 5 sano hore uu runtii speed fiican xawaaro fiican wadanku ku dhaqaaqo marka dadkuna waxay isbarbardhigaan inta badan bilowgii xukunka askarta iyo hanti wadaaga iyo 9 ama 10 sano hore ee hanti wadaaga maxaan dhahday dowladaha rayidka ee wadanka haysteen marka 5 sano hore aad baa loogu amaanaa taliska laakiin wixii ka dambeeyay dhaqaaluhu hoos u socday oo inuu iman doonaa wixii ka dambeeyay 27kii amaba tusaale ahaan ilaa 27kii dagaalka Itoobiya iyo Soomaaliya markuu dhacay wixii ka dambeeyay dhaqaalaha dalku aad buu hoos ugu socday aad buu burburay ilaa 80nadiina uu halkii ugu hooseysay maxaan dhahday uu gaadho loo oran karaa uu istaagay dhamaantii marka 5 sano hore runtii aad loogu amaanaa taliska askartu in ay dhaqaalaha aad u kobciyeen okay nidaamkii cusba ee askartu qaateen ee ay shaaciyeen sanad guradooda koowaadba ee hanti wadaagga cilmi ku dhista saameyn intee leeg ayuu ku yeeshay waxaan filayaa cutub waad gaar ka qaatay buugaagana marka maxay waxyaabihii uu qaabkii uu saameeyay dhaqaalihii wadanka muxuu ahaa ma waxa faa'iido laga dhaxlay mise waxyaabo waxa jiray dhibaatooyin oo laga dhaxlay horta niyo waxa jirta dood weyn oo oranaysa dhaqaalaha marka laga hadlayo dhaqaalaha ma waxa u fiican inuu noqdo nidaam hanti wadaag oo ay dowladdu dhaqaalaha gacanta ku hayso ama ay door weyn ku leedahay mise waxa fiican inuu suuqa xor noqdo isagoo iswado dowladduna kor joogtayn iyo ma garanaysaa shuruuc samayn iyo xaasun door noocaas ay leedahay oo dood weyn oo dhaqaalo taagan runtii mushkiladda ugu weyn aan isleeyahay way dhacday waxay ahayd nidaamka la qaatay maxaan dhahday hanti wadaag ah nooca la qaatay mu ahayn nooc ka turjumaya waaqaca bulshada Soomaalidu ay ku nooleed nooc si toos ah uga turjumaya mu ahayn dalalka Afrika hanti wadaagu aad buu caan uga ahaa sababta ugu weyn oo qaadan jirnay waxay ahayd dowladuhu markii ay ka soo baxeen xornimada ay qaateen dowladaha Afrikaanku waxay ku fikireen ama isku dayeen inay horumar degdeg ah gaadhaan horumarkiina inay nidaamkan reer galbeedku ay boqolaalka sano ku soo gaadheen ay ku gaadhaan way la noqon weyday arrinta labaadna waxay ahayd aad ugu may kalsooneen wadamadii imika xorriyadda siiyay soo gumaysto markii hore khayraadkoogii kurtay inay gacan qabtaan oo maxaan dhahday ay dhaqaale ahaan koriyaan deedna taasi waxay noqotay inay xagga bariga u yaacaan oo ay dhahdaan nidaam hanti wadaagan u qaadanayna nidaamka hanti wadaagga dalalka Afrika ku qaateen dhowr nooc baa waxa ugu muhiimsanaa kan la yiraahdo African Socialism oo hanti wadaagga Afrikaana marka hanti wadaaggaas wuxuu ahaa in nidaamkii hanti wadaaggii Yurub ku dhashay ee ay wadamada midowga Soviyeetiga dalalka la mid ah ay adeegsanayeen oo classical socialism ahaa inta loo soo qaado in waaqicii Afrika lagu saleeyo doodana waxay ahayd nidaamka hanti wadaaggu sidiisaba oo Afrikaan oo dadka Afrikaanku qaabkii u nool yihiin baa qaab communities oo beel ahaan u nool wax wada leh oo wax wada samaysto oo hantidu ka dhaxayso tusaalahan marka nidaamku waxa uu arkay inuu la jaan qaadayo laakiin uu u baahan yahay in waaqac lagu saleeyo tusaalayaasha ugu fiican waxa ka mid ah Ghana maxaan dhahday Nkrumah madaxweynaha Ghana tusaalahan African Socialistiska ugu waaweyn Afrika ayuu ahaa waxa ka mid ah Julius Nyerere Tanzania ama Tanganyika ayaa isna ka mid ah waa tusaalayaal aad u fiican oo tusaalahan African Socialism inkastoo dooda guud ee maxaan dhahday markaad eegto cilmi baaris laga qorayo dham ay tahay inuu runtii fashilmay nidaamka hanti wadaaggu nooc doona ha ahaade inuu Afrika ku fashilmay inkastoo doodu tahay laakiin haddana kaasi qaad mushkiladda markaa Soomaaliya ka dhacday waxay ahayd waxa la qaatay scientific socialism aan waaqicii aad ula jaan qaadin waxa maqnayd aqoontii loo baahnaa oo waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed ee markaa joogay ama dawladda ku jiray dad aqoon u leh ama ma nidaamkan hanti wadaagga aqoon dheer u leh oo hanti wadaagnimadu ay mabda ka tahay oo tacab badan gelin karo ka shaqaysiin kara ma ahayn runtii taasina waxay ahayd maxaan dhahday mushkilad kale waxay ahayd dadka Soomaalidu waqtiga waxay ahaayeen dad I think markii la qaatay sida buuga qorayo hanti wadaagga dadku ilaa 6% miyi ku noolaa iyo baadiye 1% inta ka soo hadhay oo kaliya magaalooyin ku noolaa miyigi maxaa la socda illiteracy baa la socda dadku aqoon ma leh wax ma qoraan wax ma akhriyaan nidaam ma yaqaanaan nidaam ma fahansana taasina caqabad kale noqoto ummad aan reer miyiga oo
xoolo dhaqato iyo iska ah maxaan dhahdaay beeraley iska ah tusaale ahaan inaad nidaam hanti wadaag u keento oo tiraahdo hantidii baa la wada yeelanaya ee dowladda gacanta ku haynaysa xoolahaaga baa lagula yeelanaya tusaale in lagu yidhahdo taasina runtii caqabad kale ayay ahayd wadaadada iyaguna mar walba tusaale ahaan halis u arkayey maxaan dhahdaa nidaamka hanti wadaag iyo wax diinta halis ku ah tusaale ahaan laakiin si kooban waxaan isleeyahay hun waaqaca lagu qaatay iyo waxaan aad isku qaadanayn oo nolosha qaabka nolosha Soomaalidu taallay waxaan aad isku qaadanayn maxaan dhahdaayeen nidaamka laftiisa ayaan aad isku qaadanayn okay waxa kale oo khadar aad ku xustay buugaagan in dhinaca warshadaha kale warshado badan la hirgeliyay waqtiyadaasi isla markaana wax soo saar badan ay magal sameeyeen inkastoo inta badan waxyaabo ay dhoofiyo dibadda loo dhoofiyo ay yaraan sabab xusan marka maxay ahayn warshadahaas ilaa tira intee lag baahan maxay soo saar jireen horta wadanku lixdanadii san sheegnay deymihii iyo daqiiqii heli jiray warshado yar yar oo kooban ayaa lagu maalgeliyay laakiin markii askartu timid warshadiina way la wareegtay oo dawladda ay yeelatay iyo wixii xataa kuwii gaarka loo lahaa oo ay warshadii isnaa ayaa sokorta tusaalaan ka mid ahayd waxa dhacday markaa in ay dawladdu aad u siiso mudnaanta warshadaha marka waxaa jiray aragtiyahan wadamada Afrikaanku ay qaadanayeen mar walba wadan kasta waxba mudnaanta siirey oo imika saan soo sheegnay Tanzania oo kale waxa mudnaan u ahaa beeraha Ghana oo kale waxa mudnaan u ahaa warshadaha marka Soomaalidu aragtida Ghana oo kale qabto warshadaha wax loo arkay ilbaxnimo horumar in laga gudbay beeraleynimadii ayaa loo arkay tusaale ahaan marka dadaal badan baa runtii warshadaha la geliyay nidaamka hanti wadaagu markuu yimid wuxuu sameeyay qorshayaal dhaqaale oo qaran ayuu sameeyay qorshayaal horumarin dhaqaale qaran qorshayaashaas kii koobaad beeraha iyo waxa soo fokusay laakiin kii labaad baa aad warshadaha xog loogu saaray marka waxa la dhahdaa ilaa 78 kale markii qorshihii labaad ee qaranku dhamaadkiisii ilaa 250 warshadood ayaa wadanka warshadihii la gaarsiiyay warshadahaasni oo mushkilada ku dhacday waxa ay horta badankooda markii hore waxa lagu maalgeliyay deyn iyo deeq gargaar shisheeye dunida laga helay ayaa lagu maalgeliyay marka warshadii culays baa fuulay markiiba in deymihii dib loo bixiyo waxa kale oo culays ku fuulay in dawladda lafteedu ay ku tiirsanaato warshadihii inay ka miisaaniyadeed ka hesho iyo in dulsaarkan kale ee deymaha ay celinayaan uu saaran yahay tusaale ahaan culayska kale dhacay wuxuu ahaa Soomaalidu maadaama xilliyadan nidha aqoontu aad bay ugu yarayd waxa la waayay ama yaraa xirfado dad xirfad leh iyo xirfad shaqo iyo xirfad maamul labadaba tusaale ahaan aad bay iyaduna u yarayd waxa soo dhan waxa keenay inaan warshado xataa hadii dhaqaale ahaan aad looga faa'iideysan lahaa inaan marnaba aad looga faa'iideysan oo aanay intii ugu badnayd ama ay soo saari karayeen inaanay soo saarin tusaale ahaan marka waxa la odhan karaa culays dhaqaale ayaa bay warshaduhu markii dambe dalka ku noqdeen halkii la rabay inay ku noqdaan maxaan dhahday ay faa'iido dhaqaale keenaan oo dhaqaalaha kobciyaan oo dhaqaalaha ay kor maxaan dhahday ay u qaadaan tusaale ahaan marka waxyaabahaas ka mid ah runtii waxyaaba markii dambena waxa dhacdayba nidaamka tusaalahan warshadaha iyo shaqaalaha kala wadanka waxay bixin jireen mushahar aad u yar marka xataa qofka xirfadda leh ee aqoon fiican oo xataa dibadda ka soo bartay la rabo in warshadaha ka shaqeeyo waxyaabaha ku dhacay waxa kamid ahaa in ay mushahar ku fiican la siin waayay oo waxyaabo dhiirigeliyo shaqadii ay ku sii wadaan oo shaqadii ay ku sii joogaan la waayay taas waxay keentay in 70-nadii dhexdoodii aakhirkoodii dadkii aqoonta lahaa ee dhammi wadanka ay saga baxaan oo wadamada carabta khaliijka ay shaqo tagaan oo markaa shidaal helay oo shaqooyin fiican ay tusaalahan ay ka jireen tusaalahan taas ayaduna kamid ah marka waxaan isleeyahay sabab badan baa jiray oo ragaadiyay nidaamka warshadaha markaa wadanku uu sameeyay waqti xadirka qadar waxaad ka dhawaajisay in isla markii 5 sano horeeyay waqtigii askartu talada hayeen dhaqaaluhu kabac weyn sameeyay laakiin wixii ka dambeeyay uu hoos u dhac sii socday maxaa u soo waastaan kartaa hoos u dhac dhaqaale ee 75 wixii ka dambeeyay dhacay horta waxaad moodaa in askartu inta badan nidaam istiraatiijiyad siyaasadeed oo aragti dheer kuma socon waxa waday xamaasad baa waday markii hore marka waxaad moodaa horta in xamaasadii iyo magaranaysa ay iska jabtay ilaa 5 sano markii nidaamku socday talisku arinta kalena waxay ahayd runtii saameyntu waxay badankeedu ka bilaabmaysaa dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya 78 dagaalkana waxyaabaha saameynta ugu badan ku yeeshay waxa kamid ah horta dagaalkaasi wuxuu keenay in midowgii Sovieti iyo Jamhuuriyadda Soomaaliya isku dhacaan oo midowga Sovieti waa kii dhinaca Itoobiya ka soo saftay ee dagaalka soo horjeestay markii dambena laba dagaalamay dhinaca kale ka soo jeestay taas waxa keentay markaa inay dalku waayo maxaan dhahday taageeradii ugu weyneed gacantii ugu weyneed ee uu ka helayay dawladaha shisheeye ayaa tusaalahan iyaduna kamid ahayd waxa kaloo kamid ahaa culayska dhaqaale marka waxa soo ifbaxday xataa qaabka uu wadanku ugu intee in leeg yani xadiga uu wadanku ku tiirsan yahay maxaan dhahday gargaar iyo deyn shisheeye ku tiirsan yahay xataa runtii soo baxday sanadaha oo dalku aad buu isku taagay xataa waxa dhacday wadanka yani daciifnimadiisa waxyaabaha soo saaray waxa kamid ah iska daa inuu wadanku ku tiirsanaado gargaar horumarineed xataa gargaar bini'aadanimo wadanku u baahday oo tusaalahaan markii abaartii daba dheer oo kale 74 meelaha dhacday 73
wadanku wuxuu dunida oo dhan soo gurmatay wadanka si dadkii loo badbaadiyo oo dadkii tusaale ahaan waqooyiga ahaa beeraleyda ha la raro koonfur loo raro waxaasoo dhan dowladdu inay isku hagaajiso nidaam u samayso mooyaane wax kumay lahayn gargaar sheeyo waxaasoo dhan lagu sameeyey dagaalka Ethiopia iyo Soomaaliya maadaama dhulkan lagu dagaalamay dhul Soomaaliyeed ahaa dadkii Soomaaliyeed oo dhan ayaa dalka u soo qaxay taasina waxay keentay in culays kale soo fulo ay dowladdu awoodi weydo inay dadkii maxaan dhahday caawiso ama ay gacan qabato soo qaxay taasina culays kale ku keentay dhaqaalihii iyo waxay culays badan bay saartay dhaqaalihii taasa markaa kamid ah markii dambena waxa dhacday 19 oo kale tusaale ahaan amiin 19 oo kale tusaale ahaan wadanku maadaama uu de la'aantii gargaar sheeyan oo la istaagi karin xagga galbeedku uu janjeersamay marka galbeedkuna waxa jira bariga curyaamin badan bay dhaqaalaha wadamada soo koraya ku hayeen waxa jira wax la yiraahdo structural adjustment programs barnaamijyo lagu nidaamiyo qaab dhismeedka dhaqaalaha dalka oo markaas lacag deyn baa lagu siinayaa ama deeq laakiin shuruudo adag baa lagu xidhayaa shuruudahaasna dhaqaalaha curyaaminaya marka tusaale ahaan muuska oo kale ay maalgelintii wareeg ku sameeyeen maxaan dhahday IMF ta iyo hay'adda lacagta adduunka iyo dawladaha reer galbeedku arrintaas markaa waxay keentay in nidaamkii dhaqaale uu dib inuu hoos u socdo uu bilaabo arrinta kale jirtana waxay ahayd marka waxay noqotay in hanti wadaagga laga guuro suuqa xorta nidaamka suuqa xorta hantiga hoosga loo bayro oo market suuqyadii iyo nidaamka dhaqaale dib u habeyn lagu sameeyo dib u habeyntaasina waxay ka suuragali wada ka socon weeday siyaasadihii hanti wadaaggu saamaynta ay wadanka u geysteen ay ka socon weeday oo kuwii ba dabray dadna waxay noqotay in wadanka dhinac buu dhaqaaq waayo oo dhaqaalihii istaago ay sababtay markii dambe state-nimadii waxa dhacay qalalaasa siyaasadeed baa dhacay jabhada abuurmay wadanka dagaal buu galay khilaaf siyaasadeed buu gudihiisa ka abuurmay state wadanka isku day maxaan dhahday afkami baa dhacay waxa soo dhami waxa keeneen in mid kale wanaga niri dadkii aqoonta lahaay wadanka dhaqaalihiisa wada dhamina wadanka way ka baxeen ba wadamada khaliij oo kale ay shaqo tageen marka taas waxa keentay in runtii wadanku state-nidii dhaqaalihiisu uu istaago ama uu hoos u socdo ay taasi keentay ilaa markii dambe sidaa ku burburayba okay markaan ka hadlayno khadarow inta badan cutubyo gaar aad kaga hadashay deynta iyo waliba muxuu ahaaday gargaarka shaqeeyay heli jirtay marka aynu qiyaasno ama ma garanaysaa il dhaqaalaad ku igtid door intee leeg bay ma garanaysaa dhaqaalaha Soomaaliya ay ka hayd taageeradaasi gargaarka bini'aadanimo ama taageerada shisheeye iyo deyntuba dhaqaalihii Soomaaliya waqtiyadaas niyo runtii sidaan sheegay dhaqaaluhu mabuu yani weligiiba cagiisa kuma istaagin dhaqaalaha dalku marka xad aad u weyn ilaa xad ayuu wadanku ku tiirsanaa gargaar iyo maxaan dhahday deyn shisheeye arrinta kale mushkiladda wadanka haystina waxay ahayd dalku dal isku filaansho cunto iyo wax soo saar gaari mu ahayn sidoo kale waxaa jiray oo iyaduna mushkilad kale ahayd dalku waxa uu dhoofiyo wax mar walba ka badnayd maxaan dhahday waxa uu soo dejisto marka wadanku mar walba wuxuu ku jiray maxaan dhahday dhinaansho ganacsi ayuu ku jiray taasina waxay keenaysaa marka in wadanka lacag adag mar walba ka baxdo isagu wax soo iibsado wadanku laakiin lacagta soo gasha ay yartahay ama koobantay oo san sheegnay waxyaabo kooban oo beer xoolaha ayaa kamid yihiin oo state-nadiina runtii uu cunaqabateena Sacuudiga ayaa saareen ba ay aad u ragaadiyeen muska laftiisa markii dambe culays ay fuuleen maxaan dhahday ayaa jiray marka wadanku wuxuu ku socday oo hadda imika eegto wax alla waxa mashruuc dawladdu fulisay intii ahdi wadaag soo jiray haddaad eegto warshadaha la dhisay haddaad eegto mashaariicda waaweyn wadooyinka maxaan dhahday kaabayaasha dhaqaalaha la dhisay dhammaantood ama deyn baa lagu dhisay dal dibad laga soo qaatay dalal iyo hay-adaba ama waxa lagu dhisay maxaan dhahday gargaar ayaa lagu dhisay marka dee waxa baynu oran karnaa dalkuba wuxuu ku socday gargaar iyo deyn shisheeye ku socday wadanku inta badanna waqtiyadan dambe ayaan aragnaaba iyadoo oo laga hadlayo cafinta deynta Soomaaliya marka deymaha inta badan la cafiyo iyo process ka socda wax lacagii waqtiyada la qaatay ba waa waqtiyadii waa deymii soddon ka san la qaatay oo de wadanku 60kii wixii ka horeeyayna deymo mu qaadan oo maxaan dhahday dawladda kale kamid ah ayuu hoos joogay intii dambana iska daayay imka waxaad ku arki doontaa buugga deynta ka hadlaya chapterka deynta ka hadlaya in deyn cafintu ay bilaabantay state-nadii oo Soomaaliya culays lagu saaray markay iska bixin weyday deymii hore inay si ay deymo cusub u qaadato in horta kuwii hore wax laga cafiyo oo wadamadan Paris Club la dhaco waxaan Paris Club ku jira isku yimaadaan oo deymo ka cafiyaan waxaad arki doontaa process-kan deyn cafintu waa wax bilaabmay aakhirkii state-nadii laakiin markii dambe istaagay maadaama oo dalku oo maxaan dhahday u burburay marka ilaa la helo dawlad waxoogaa lala xisaabtami karo mas'uuliyadiina qaadi karta markii hadhoona hadii wax la siin karo ayaa la sugay marka runtii waxaan aad maanta aynu maqalno ee la yiraahdo deyn cafin iyo dalba deyn laga cafinaya waa wixii markaa la qaatay 30 sano waliba intii hore ilaa dabayaaqadii state-nadii wixii ka horeeyay ilaa 60nadii la qaatay in hadii aynu su'aal yaro ka baxsan deyn yaro gal oo ah inta badan
laba qodob baad inta badan bugaaga wadka soo ahayd in dhaqaalaha Soomaalidu ama xagga xoolaha nool oo aad laf dhabar ay xoolaha nool u hayeen ilaa maantana sidii ayaad moodaa in xoolahii noolaa in ka soo wax badan isbedeleen wax bedelay labadii arrimood ee wax soo saarka beeraha iyo magaranaysa xoolihii oo dhaqaalaha Soomaalida imika ay ku tirsan yihiin ma jiraan haddaynu dhaqaalaha waqti xaadirkan ka hadalno waxaan filayaa waxa ugu muhiimsan ee kusoo kordhay waa waxaan la yidhaha remittanceska lacagtan ay dadka ehelka ay dibadda uga soo diraan dadka oo runtii dee sagaashanadii oo kale waddanku dhaqaalan mu lahayn Somaliland labada dhinacba dhaqaalu aad u daciif u ahaa waxaan ognahay inuu maxaan dhahdaay wax soo saarka dhoofintu ay aad u yarayd wax soo saarka beero laga yaabo inuu baaba'ayba xoolaha nool dhoofintooda mar walba Sacuudiga wax culays saarayay wadamada kale aynu dhoofinaa oo ay joojinayeen ay xanibayeen marka weli xoolaha nool iyo beeruhu waxa weeyaan laf dhabar dhaqaale weliba xaggan Somaliland oo kale dee xoolaha nool baa ugu muhiimsan laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan la odhan karo way kusoo beereen waxa weeyaan waa lacagta xawlaadda koonfurtana dee ama Soomaaliyana mushkiladda ugu weyn haysataa waxa weeyaan inta dee waddanku burbur ku jira nidaam dhaqaale baanu jirin gargaarku weli waa muhiim laakiin gargaarkiiba ah mid humanitarian oo maxaan dhahday bini'aadanimo oo dadka la tacaalayo loo soo gurmanayo u badan iyo in dawlad dhis loo sameeyo nidaamka dawlad dhiska xal laga caawiyo ayuu tusaale ahaan u badan yahay laakiin weli dhaqaalaha Soomaalida runtii wax badan iskama bedelin buugga waxyaabaha aad ku arki doonto waxa ka mid ah anigu anaadka ugu dhalalayo nidaamka reer guuraanimada ee aynu u noolnahay ee bulshadeenu ay u nooshahay oo ah runtii nidaam markaad eegto boqolaal sano aynu soo noolayn sidaynu awooyaashan ka dhaxalnay aabayaashood kasii dhaxleen aynaan waxba ka bedelin marka waxaad moodaa in aqoontii Soomaalidu ay baratay ilbaxnimadii usoo kordhay dawladnimadii ay xallin kari waayeen inay nolosha Soomaalida qaabeeyaan oo sidan si ka duwan ay la yimaadaan waayo dee imikadan abaaraynu ka cabanayna xoolihii way dhimanayaan waa sidaa sanad walba waa sidaa waa mar abaar la ka cabanayo dadku baaba'san yahay iyo mar aanay wax badan helayno ama aanay wixii ay haysteen aanay suuq u helayno ama Sacuudiga joojiya ama meel kale joojis marka noloshan laguma noolaan karo waxa muhiim ah in dib loo eego oo dib loo qaabeeyo marka runtii doodaha buugga ku jira ay ka mid tahay okay ugu dambeyntii tagi doonaa khadarow maxaad waxyaabaha ku soo baxay intii aad buuggan qoraysay ee aad leedahay dhaqaalaha Soomaalida waxba ka tari karaa ama waad ku ogaatay maxaa ka mid ah horta niyo dooda ugu weyn ee buugguna uu isla taagay markii hore waxa ka mid ah Soomaalidu inta badan waad aragtay 30 sano iyo dheeraad bay imka dawlad burbur ama dawlad la'aan ama dawlad daciif ah ay ku hoos nooshahay marka inta badan waxa jirta hibashada in dib loo eego ama dib loo xusuusto wixii 30 sano jiray iyo nidaamkii jiray dib loo xusuusto ayaa jirta marka dooda odhanaysa tusaale ahaan berisamaad baynu soo marnay maalmo wacan oo dal awood la jiray oo nidaam dhaqaale jiray tusaale ahaan buugga horta taasuu runtii isla taagaya waxaan soo baxday in marka dhanka dhaqaalaha laga eego dalka Soomaaliyeed dhinac walba marka laga eego inaan wax berisamaad la soo marin oo saanu sheegnay mar walba waddanku waddan daciifa dhaqaale ahaan ahaa dunida kale ku tirsan oo ahaa tusaale ahaan marka berisamaadkaas ka mid ah su'aasha horeysa buugga ka jawaabayo waxyaabaha kale ee soo baxay waxa ka mid ah in dhaqaalaha dalku aan weligiiba hagiisa isku taagin oo maxaan dhahdaa aan sheegay mar walba ku tirsanaa shisheeye oo mar walba dawladdu ay gacmo hoorsi iyo dawarsi runtii ay ku jirtay dawladaha shisheeye arrimahaasina marka dhinaca siyaasadda laga eego waa inaad ogaato inay saameyn ku leeyihiin waddanka oo imika waddanku wuxuu ka mid yahay hay'ado caalamiya ayuu xubin ka yahay arrimaha laga doodaa hay'ado gobolkaaba xubin ka yahay markaa tahay qof ku tiirsan dawlado kale tusaale ahaan xagga diblomaasiyadda marka laga eego sideed ula doodi kartaa waddanka sideed ugu mucaaradi kartaa madalaha caalamiga ugu mucaaradi kartaa sideed uga aragtid wanaan kartaa tusaale ahaan xataa waxay saameynaysaa sharaftii iyo karaamada dunida ku lahayd inaad cid ku tiirsanaato tusaale ahaan waxyaabaha kale buugga hele waxaa ka mid ah Soomaaliya mar walba sida maantana tahay runtii waxay ahayd dalalka dunida ugu faqiirsan faqiirnimadan inta badan waxaa laga eegaa waxaa la yidhaha per capita income dakhliga qofka ee tusaale ahaan ama dhaqaalaha tacabka gudaha ama tacabka qarankaba ha noqdo labadaba ayaa laga eegaa marka dalku dal aad u daciif u ahaa runtii marka dhaqaale ahaan marka laga hadlo siday dad badan moodayaan ma aha xogtana runtii caddeynteeda buugga way wadataa maaha waxaan iska leeyahay waxaad ka helaysaa qofka akhristahay wuxuu buugga ka heli doonaa caddeyntii oo dhammaystiran laakiin waxyaabaha ugu weyn buugga iga soo baxay waxaa ka mid ah in arrimahan sheegay inuu dalku aad faqiir u ahaa inuu dalku tusaale ahaan waxa kale muhiimka waxaa ka mid ah dawladdu waxyaabaha tarta dunida waxaa ka mid ah in dadka noloshooda damaanad qaado in nolosha bulshada la damaanad qaadana waxaa ka mid ah in uu waddanku isku filaasho cunto gaadho ugu yaraan weligeed jamhuuriyadda Soomaaliyeed may gaadhin isku filaasho cunto waana waxa mushkiladda ilaa maanta haysata maanta waxaan ognahay
dagaalka ka socda dalka Ukraine saameynta uu ku yeeshay dunida iyo sida loo dareemay muhiimadda ay leedahay inuu dalku ku filnaado cuntada iyo raashinka uu cunayo u baahan yahay marka haddii la waayo oo waddan ku filan waayo waxa dhacaysa in dadka noloshoodii aan la damaanad qaadi karin oo maanta waynu aragnaa wax walba inay dunida istaageen oo waddan waliba uu joojiyay wixii dunida kala dhoofin jiray uu ka fikirayo dadkiisu maxay cunayaan dadkiisu maxay u baahan yihiin marka dee dalalka aan waxba la soo bixin inagu aanu ka mid nahay weligeena aanu sida ahayn culays badan baa runtii haysta oo waa sababta aan leeyahay in nidaamkan xoolo dhaqatada dib loo eego la xal tusaalahaan beeraha oo kale maalgelin badan la geliyo laga fikiro sidii isku filnaansho wax soo saar oo kale la gaadhi lahaa ayaa tusaalahaan kamid marka inahaasa kamid waxyaabaha ugu waaweyn buugga iga soo baxay runtii runtii nimanka laga hadlo iyadoo maanta ama wiiganba gudihiisa loo dabaaldegi doono ilaa ay ku beegan tahay 6 June iyo waliba 1 July ay ku xigto waxaad leedahay oo doodaad ku salaysan tahay 62 ka sanadood bilowgii 60kii kabkii la siinayay miisaaniyadda dawladda ayaa maanta ilaa maantana lagu kabaya oo garanaysa dawladaha Soomaaliya kale kabkii wali la siinay marka wax isbedel oo ilaa maanta ilaa waqtigaas 62 ka sano oo dhaqaalihi ku yimi jiraan horta de mushkilada ugu weyn waxa weeyaan wax waloo la sameeyay uu burburay oo inta dib loo u baabaaday ayaa runtii badan laakiin arrinta muhiimka waxa weeyaan marka xagga dawladda laga hadlayo runtii weligeena dhaqaale fiican oo adag maynu dhisan dhaqaale fiican maynu yeelan bulshadeena nolosheeda maynu maxaan dhahday damaanad qaadin oo cuntada ay ugu horeyso ka mid tahay weligeen waxaynu dunida u dhoofinaa kama badan waxaynu ka soo dejisano oo mar walba dunidan ku tirsanahay oo iyagaa waxay noo beero waxay soo dejisaneen cunaa tusaale ahaan xagga nolosha bini aadanka marka la eego waxaabaad is odhanaysaa maanta ayaa dhaanta hadda dawladdu ama daciif ha noqoto ama dawladdu iyana jirinbe waqti xaadirkan baa runtii dadku ay ka nolol fiican yihiin xilliyada buugu baaraya qaarkood weliba statenadii oo kale ha u badnaadaan oo waddanka dhanbe laga yaabo inuu ku tiirsanaa gargaarkii qaxoontiga la siinaya ay dawladdu ku socotay amaba lacagtii yareedee dadkii khaliijka tegay ay dadka ku soo dirayeen maxaan dhahday tusaale ahaan ay ku noolaayeen dadkuba oo aan waddanku dhaqaalihiisu waxba soo saareen maxaan dhahday tusaale ahaan marka runtii 62 sano oo gobonnimo oo haddana aan waxba gobonnimo lagu sheegi karin oo dadku still gobonnimo badan ay jirto dadku ay gaajoonayaan dadku aanay cunto cunaan aanay haysan tusaale ahaan waxyaabo muhiim oo in la isweydiiyo baahan oo la yiraahdo gobonnimadan aanu dabaaldegana runtii maxay gobonnimo tahay haddii maanta abaar dadkeenu dhimanayaan 62 sano kadib tusaale ahaan gobonnimadii kadib maxaa gobonnimada aynu sheegayna ay tahay macno ay taalaan sameynaysa haddaanay dadkii noloshoodii sharaf iyo karaamo ku soo kordhin oo dadkii maanta si wanaagsan aanay u nooleyn tusaale ahaan marka runtii yes waa saad sheegtay maxaan dhahdaa wax badan oo loo dabaaldegaa runtii ma muuqdaan aad iyo aad umahadsan tahay daawadayaal kaasi waxa uu ahaa Khadar Maxamed oo isagu ah aqoon-yahan qoray